waa imise xukun xabsiyeedkii ugu dheeraa ee aad noloshaada maqashay? 25 sano, 50 sano, ama xabsi daa'in? Waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah 10kii qofood ee ugu xukunka dheeraa taariikhda ee lagu xukumay xabsi. 10. 1985tii, Bobby Joe Long waxaa lagu xukumay xabsi daa'in 33 jeer iyo 4 xukun oo 99 xabsi ah. Waxa uu dheeraa xukun dil ah kadib markii uu 8 bilood gudahooda uu kufsi u geystay in ka badan 50 naagood, sidoo kalena uu dilay ugu yaraan 26. 9. 2015kii, Billy Joy Godfrey waxaa lagu xukumay xabsi daa'in 35 mar, yacni ugu yaraan 50 sano xabsi ah, kadib markii uu kufsi u geystay 2 carruur ah, 8 jir iyo 13 sano jir. 8. 1996, Martin Bryant waxaa lagu xukumay 35 sano xabsi iyo 35 jeer xabsi daa'in, kadib markii xasuuq baan uu u geystay in ka badan 35 qofood. Dhacdadan ayaa ka dhacday dalka Australia, waxaana loogu magac daray xasuuqii Port Arthur. 7. 2016, Rene Lopez waxaa lagu xukumay 1503 sano xabsi ah, kadib markii uu kufsi u geystay gabadhiisa in ka badan 186 jeer. 6. James Egan Holmes ayaa lagu xukumay 3318 sano xabsi iyo 12 jeer xabsi daa'in, kadib markii dil iyo dhaawac uu u geystay 82 qofood ku jiray tiyaatar lagu soo bandhigayay filimka Dark Knight Rises 2012. 5. 1981dii, Dudley Wayne Kaiser waxaa lagu xukumay 10,000 oo sano xabsi iyo 3 jeer xabsi daa'in ah. Waxa uu mar taariikhda Guinness World Record ka galay ninkii ugu xukunka dheeraa abid xabsi lagu xukumo, kadib markii uu dilay naagtiisa, hooyadeeda iyo wiil arday ahaa. 4. 1996dii, Alan Wayne McLaurin waxaa lagu xukumay 20,750 sano xabsi, sidoo kale waxaa lala xukumay saaxiibkiisa Darren Anderson 11,250 sano xabsi, kadib markii ay kufsi iyo dil iyo afduub u geysteen naag duq ah. 3. 1994, Charles Scott Robinson waxaa lagu xukumay 30,000 sano xabsi, kadib markii afduub iyo kufsi uu u geystay cunug 3 jir ah ilaa 6 jeer. Heer garsooraha maxkamadda uu go'aan ku gaaray inuusan hadda wixii ka dambeeya cunug iyo iftiinba uusan arkin. 2. 2007dii, Jamal Zaquum iyo Cismaan Al-Kanawi kuwaasoo ka soo jeeda Morocco, midkiiba waxaa lagu xukumay 43,000 sano. Waxaa kaloo la xukumay nin Spain ah, Emilio Suarez, waxaana lagu xukumay 34,000 sano xabsi, kadib markii ay qaraxyo baan ay ka geysteen Spain 2004 kuna dhintay in ka badan 190 qofood. Inta aan kuu soo gudbin nambarka koowaad, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, haddii aad Facebook iga daawanaysana follow iyo share aad noo dhahdo. 1989kii, Jamoithe Biaso ayaa xiratay booska koowaad ee qofkii ugu xukunka dheeraa caalamka, waxaana lagu xukumay 142,000 oo sano xabsi, kadib markii ay khiyaantay 16,000 muwaadin Thailand ah oo ugu yaraan ay ka cuntay lacag dhan $204 milyan.